marka abaari ay timaado waxyaabaha ugu muhiimsanaynu qabanayna waxa ka mid ah inaynu ilaahay barino subxaanahu wa tacaala way roobka isagaana haya inagu awoodu ma lihin haddaynu bani aadamka nahay inaynu roob iyo raxmaad lagu raysto keenno ayaamahan aynu maqlaynaa ama casriyadan u dambeeyey roob baa la kala xaday waa beenaha gaaladay ka mid oo hindiya kaga cabanaysa China roobkii naga xaday oo leexsaday waalku ilaahay la doono subxaanahu wa tacaala boqol dabaylood hadday soo buufiyaan oo halkaa uu tagay aanu ilaahay la doonaynin kuma dii karo waxa iyagu lahaayeenna ma ahee waxa la xadaa wixii adigu aad leedahay baa laga xadaa maba lahaba ilaahay baa madar kale subxaanahu wa tacaala wax cid sheegan kartana ma aha way dhacdaa dadkeenu miyiga ha u badnaadeena markay roob doonayaan inay la seegaan oo habkii sunnada ahayd ee saxiixa ahayd ee nabiga ka sugnayd ma maraan dad badan mararka qaarkood waxaynu arki jirnay ciyaalka oo fiilo dheer la geliyo oo loox madaxa loo saaro oo bacadka la wareejiyo oo halkaa lagu qallaxo ciyaalka dadka qaarkoodna xoolo ay ururiyaan miyigoo xabaalaha la tagaa halkaasaa lagu dul cunaa marka ilaahay la baryayo waa cibaadadaasina wuxuu ilaahay ku aqbalayaa ku ajiibayaa in la soo maro aadaabteedii uu nabigu tusaalaha inoogu ahaa sallallahu alayhi wasallam